بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. maanta waa 12 Oktoobar 2020 waa maalintii calankeena, calanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, calanka ummadda Soomaaliyeed. waxaa ka soo wareegtay maalintii calankan la naqshadeeyay 66 sano. maalintaas oo uu Allah u naxariistay halgama Maxamed Cawaale Liibaan uu naqshadeeyay calanka 1954. calankeenu wuxuu leeyahay taariikh sida dadkeena iyo dalkeenaba taariikh kala duwan oo dhib badan iyo kuwo qurux badan ba ay u soo marto ummadeena. waxaan soo marnay waqti calanku aan u hurno dhiigeena. maxamed cabdulla xalane Allah u naxariistay wuxuu ahaa geesi Soomaaliyeed oo qadarta Rabbi ka sokow u geeriyooday asiga oo calanka inuu cadow gacantii gala ka ilaalinayo. dhiigaas iyo dhiigaag kaloo fara badan oo geesiyaal Soomaaliyeed qaar la yaqaan iyo qaar aan la aqooninba ayaa loo daadiyay ilaalinta heybadda iyo sharafta calanka, oo macnaheedu uu yahay in ay heybadeenni iyo sharafteennii oo dhan ay saaran tahay calanka dushiisa. aniga calanku wuxuu ii leeyahay xusuus iyo taariikh gaar ah. bishii Sebtembar 2012 ayaa la ii doortay inaan madaxweynaha jamhuuriyadda noqdo. maalintaas in ka badan 85% dhulka bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya calanka Soomaaliya ee buluuga kama taagnayn, lamana ogoleyn in laga taago. calan madow oo ay leeyihiin kooxaha nabadiidka ah ayaa meel walba ka babanayay. dadaal badan oo ay galeen geesiyaasheenna ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed oo iskaashanaya iyo taladeena iyo hogaankeenii suubanay waxaa suurto gashay dhulkaas inta badan in laga bixiyo gacanta cadowga, maantana laga taaga calanka oo uu ka dulbabanayo degmooyin iyo tuulooyin aad iyo aad u fara badan. sidaas daraaddeed ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaan ku bogaadinayaa in calanka qiimeyntiisa kor loo qaado oo guryaheenna, ganacsigeenna, gaadiidkeenna iyo meel kastoo aan joognaba laga taago calanka. sidaas daraaddeed ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin calanka qiimaha uu noogu fadhiyo waa qiimahaasi aan mar walba kor u qaadno. waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto hambalyo. waxaan leeyahay sanad guurada 66aad ee maalintii calanka. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.